بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وعبد حسن علي وحنا هاي مامولها عاصمات كدقمة عدادو حالدها maanta xaaladuhu waa iska meel dhexdhexaada macnaha outbreak serious ma jiro oo maaragtay macnaha dhimasho macnaha had ka baxayna ma jirto caadigiina way ka baxday xaaladdu oo xaalad caadiga ma aha waxay u gudubtay istay dhaxay maraysa ilaa xalay waxa dhintay qof baa ku dhintay awal bukaan ayaa dhintay xalay qof kale oo asaguna magaalada ku dhaxanuunsanaa meel miyiga loo qaaday asagoo xanuunsaday labada qofood qofna wuxuu ahaa qof rag ah oo maaragtay rag ah oo 90 jir ah ayuu ahaa nin oday oo ahaa qofka kalena qof dumar oo iyaduna waayeel oo 69 sano jir ayay ahayd baadiyay ku dhimatay laakiin labadooduba waxay lahaayeen jirooyin hore ayay lahaayeen oo maaragtay cudurkan looga cabsi qabo inuu ku dhacay oo maaragtay cudurkan u dhintay shakiyaad la qabaa laakiin wax la confirm gareeyay oo inta la baaray oo cudurka u dhintay ma aha waa shaki laga qabaa sida kale magaalada jawgeedu waa iska maaragtay sidii hore weeye dad badan oo waayeel iyo dhalinyaro iyo wax walba isugu jira rag iyo dumar leh ayaan laga soo gaaraya magaalada inay xanuunsan yihiin calaamadihii ay leeyihiin cunuhu xanuunayo qandho leeyihiin madax xanuunayo maaragtay urkii iyo maaragtay iyo dareenkii dhadhanka labadaba ay ka maqan yihiin dad noocaas oo badana magaalada laga dhex sheegaya dad badana magaalada ku dhex xanuunsan oo maaragtay wararkaas badana soo gaargaaraya xaaladaha caadiga maaragtay maxaa tirahdaa xaaladaha waxaan ka wadaa xaaladaha maaragtay dadka iyo deegaanku xagga jirada waa sidaas dhinaca kaleeto waxba horumar weli maanaan samayn weli qalab iyo waxbaan sugaynaa dawladda iyo dadka shacabka waan gartay dadaal badan ay ku jiraan waxaan sugaynaa wax maaragtay gacansiin fiican aan sugaynaa insha allah tacaala maanta berri wixii kusagada dhaqaatiir iyo wax walba waan sugaynaa meel oo isolation oo meel dadka critical ah oo maaragtay cudurku aad u soo ritay lagu caawiyo lagu support gareeyo waa diyaarinay dadkii bulshadiina way maaragtay aad bay dadaalkaas u wadaan aad u mahadsan tahay laakiin markaan dhanka kale eegno ilaa iminka imise ruux ayaa diiwaan geliseen marka la eego haddii ay jiraan dad dhintay iyo dad uu soo ritay cudurka corona dadka la isleeyahay cudurkaas waa u dhinteen ilaa hadda waxay marayaan 7 ilaa 8 ayay marayaan dadka dhammaantood ma wada laha calaamadaha corona ma wada laha siyaabo kala duwan ayay maaragtay ayay u dhigmayaan qaarkood laakiin waxay u ogyihiin inay cudurkaas u dhinteen qaarkood waxay u ogyihiin inay saameyn cudurka ay leeyihiin laakiin aan dhammaystirnayn qaarkood waxay u ogyihiin inaysan lahayn calaamadii corona aysan lahayn siyaabo kala duwan laakiin waa geeri isku mara ama xilli isku mara oo cabsi badan iyo argagax badan la weeye haddii geeridu isku mar tahay isku waqti tahay maalin ama 4 saac ama 3 maalmood ama usbuuc waxa ka yarba intaas qof ay dhimato waxa la dhihi karaa cudurkaas inuu wado ama isku dhac ujeeda ayaa loo garan karaa ama looga shakin karaa laba dhigi karo qofkan cudurkiina cudurkaani wuxuu leeyahay sometime waxa la dhaahdo macnaha travel macnaha inuu marna qofka uu kusoo dhamaystirmo xaaladihiisu marna ay ka kala yaraadaan oo wax ka kala bedelaan uu leeyahay marka waa shakigaas ayaan qabnaa suspectiin dadkaas wada yihiin oo cudurkaas u dhinteen shakigaas ayaan qabnaa waan gartay dadka ilaa iminka shacabka ah ma u gudbiseen fariimo la xiriira cudurkan iyo sida ay ku haboon markaas qofka uga taxadiri karo walaal laga bilaabo April dhamaadkeedii ama bartamaheedii April waxaa la sameeyay guddi 3 qaybood ka kooban oo cudurkaas iyo arrimihiisa u howlgala qayb kamid ah waxay ahayd qayb loogu talagalay wacyigelin waxay ka koobnaayeen dadyoga saxaafada iyo website-yada ka shaqeeya culumada masaajidka ka shaqeysa dhalinyarada iyo dad caafimaadka ka shaqeeya ayaa loogu talagalay wacyigelinta inay ka shaqeeyaan waxay isticmaaleen raadiyaasha iyo gaadiidka iyo darbiyada iyo baarar waaweyn oo jeedka la suray intaas ayay isticmaaleen house to house ayay loo booqanaya waxaa la sameeyey staff la yidhaahdo hay'adda health promotion la yidhaahdo oo xaafadaha subaxii salaan ugu taga 4 xaafadood magaalada dad ilaa 20 qof ayaa magaalada ku dhex fidsan oo daily u shaqeeya oo wacyigelin iyo kiisas buka intaba raadiya inta qayb noocaas ayaa jirtay waxaa kala jirta qayb kamid ah iyadoo nadaafada oo macnaha environment-ka nadaafadiisa ka shaqeysa faraxalada iyo waxyaabaha la xiriirana ka shaqeysa iyaduna waa jiraan way shaqeynayaan hawshooda way socotaa way wadeen ilaa haddana way wadaan qayb saddexaad jirta iyaduna ka shaqeeya diyaarinta xarunta karantiilka iyo maaragtay dadka meelaha dadka xanuunsan meelihii loogu talagalay in lagu daryeelo oo maaragtay lagu samayn karo caawinaad lagu sameeyo dad noocaasna way jiraan
guddigaasaa dhisan oo degmadu ay samayso degmadu magacowday oo hogaaminayo qofka ugu sarreeya caafimaadka degmada uu hogaaminayo lana xiriirayo wasaaradda iyo dadka kaleeto oo arrintaas ay khusayso marka hawshaas horey u socotay ma jirto waxda macnaha la-aan ah wacyigelin la-aan oo dhacday ma jirto nadaafad xumo macnaha 100% dhacdana ma jirto waa laga yaabaa in wax iskala dhiman yihiin oo maaragtay gaabi yar iska jiraan oo xagga qalabka iyo waxyaalo la xiriira way iska dhacdhacaan dadka taasna waxaan kala simanahay dalka iyo deegaanka waxaan kala simanahay siyaabkaas dalka o dhan iska wada qaba intiisa badan meelo xoogaa roon dalka way iska jiraan laakiin galmudug oo kale way isku dhowdahay wax badan ma kala foga marka sidaasay ahayd marka meel cadaada ka baxsan oo lagu soo sheegay dad looga shakisan yahay kiisaska COVID-19 la xiriira ma jira wallahi dadka hadda meesha ku dhintay qaarkood waxaa laga keenay 100 kilomitir oo miyi ayaa laga keenay baxda qaladada laga keenay meelaha baxday caado dhaxeedada laga keenay laakiin dadka dhammaantood qaarna calaamadaha way leeyihiin qaarna ma laha cudurkani gaariida jira isku socda ilaa xamar iyo hargeysa iyo ilaa iyo Djibouti isu socda jira ilaa Ethiopia ka yimaado safarka iyo gaadiidku ma kala go'aan marka dadku way leeyihiin safarada ka yimaado booqdo way leeyihiin cudurkaanuna waxa la aaminsan yahay macnaha lama dhigi karo confirm waaye laakiin waxa la aaminsan yahay inuusan deegaan uu ka maqan yahay ama tuulo uu ka maqan yahay inuusan jirin la aaminsan yahay sidaas la aaminsan yahay marka la iswarsaday oo dadka jiraan la iswarsaday dadka xanuunsadaan la arkay waa sida tur noocaas aad u weyn 100% la qabo dunida inteeda kale markaad eegto qofka looga shakiyo in cudurkan uu dhintay dad gaar ah ayaa aasa oo si gaar ahaaneed loo tababaray dadka ilaa iminka 7 ruux gaaraya ee la aaminsan yahay in cudurkan ay u dhinteen ma dadkoodii eheladooda ayaa aastay mise waxaa aastay khubaro caafimaadka idinkaad u tababarteen wax khubaro caafimaad aastay talamoogi wax talaamogi wax kale toog oo technical ay ka geysteen dadka caafimaadka ma jirto laakiin talo way sameeyeen waxoogaa qalab aan badnayn oo ah PPE-ga la yidhahdo personal protective macnaha equipment-ga la yidhahdo oo dhammaystirnayn oo macnaha qalabkaas wuxuu ka kooban yahay qalab la gashto gown ah oo maaragtay surweel iyo shaati isku xiriirsan iyo koofi ah wuxuu leeyahay ookiyaalo muraayad ah oo la gashto wuxuu leeyahay gloves wuxuu leeyahay kobo intaasoo dhan ma wada dhammaystirna waxbaa ka maqmaqnaa marka wax noocaasana waan siinay oon ku caawinay oo maaragtay aan dhammaystirnay kalena waa aan siinay laakiin ma jiro team loogu talagalay dadka dhintay inay aasaan oo xabaalaan oo iyagu la wareegaan xilkiisa ma jiraan deegaanka hadda ka hor lagama samayn mana dhicin waxa xabaalay dadkooda dhaqay